السلام عليكم sideed ku horumarin kartaa shakhsiyadaada se maxay tahay shakhsiyadu su'aasha jawaabtaasi waa tan si wanaagsan dhagtaada ugu raacici shakhsiyadu waa isku dhafka hanaanka fikir dareen iyo dhaqan kuwaas oo qofka ka dhigay mid og bulshadiisa uu la nool yahay ama uu ka soo jeedo asal ahaan marka aynu leenahay qofkaasi waxa uu leeyahay shakhsiyad wanaagsan waxaynu uga jeednaa waa qof la jeclaysto la joogistiisa iyo la noolaanshihiisaba waayo waxaad jeclaysanaysaa fikirkiisa dareenkiisa iyo habdhaqankiisaba qof kasta waxa uu jecel yahay in la jeclaysto oo la xiiseeyo lana daneeyo ayna tixgeliyaan dhammaan dadka ku xeeran ee uu la nool yahay boqolkiiba 85 guushaadu waxay ku xidhan tahay shakhsiyadaada oo haddii aanad dadka soo jiidan karayn oo aanad la dhaqmi karin way kugu adkaanaysaa inaad guul gaadhaa shakhsiyadaadu hadday tahay mid dadka kuu soo dhaweynaysa oo ay jecel yihiin waxaad tahay shakhsi ay u fudud tahay inuu guulaysto laakiinse haddii ay shakhsiyadaadu ku horseedo in lagaa cararo oo lagu naco ogow weli waxaad tahay shakhsi guul daraystay dad badan ayaa kaga mashquula dhisidda iyo qurxinta jirkooda inay wanaajiyaan shakhsiyadooda 6 qodob oo ka caawinaya inaad horumariso shakhsiyadaada isla mar ahaan taasina haddii aad joogtayso ku horseediyo guul la taaban karo 1 cibaadada alla ku dadaal inaad ilaahay ku xidhnaataa waa guusha ugu weyn ee laga gaadho adduun iyo aakhiraba waayo cibaadadu waa ujeedada aynu u joogno adduunyada ee ilaahay noo keenay 2 noqo dhageysta fiican dhageysiga dadka ama se waxyaalaha faa'iidada leh waxa uu ka caawinayaa inaad dhuuxdo oo aad fahanto mucda iyo macnaha ku jira waxaas laga hadlayo waxaana kaaga kordhisa aqoon dheeraad ah tan waxay qofka kula hadlaya siinaysaa kalsooni iyo tixgelin aad u muujinaysid taasi oo sababaysa inaad noqoto qof la jecel yahay oo shakhsiyad wanaagsan oo soo jiidasho leh 3 wax badan akhri intaad wax akhrido ayuunbay leegtahay aqoonta aad leedahay iyo xogta aad haysaa dadku way jecel yihiin qofka xogta badan haya inay la sheekaystaan oo ay waqti la qaataan tani waxay sababtaa inuu qof walba xiiseeyo sheekadaada iyo agjoogaaga 4 noqo qof sheeko wadaag fiican leh barhabka iyo hanaanka loola hadlo dadka oo ha ka qajirin inaad hadasho ama se ha noqon qof muran badan waayo muranka waxa lagu yaqaanaa qofka aan xogta badan haynin 5 yeelo fikir wax ka wanaagsan ma jiro inaad yeelato fikir togan oo ku gaar ah kaas oo ka caawinaya inaad yeelato fikir ku gaar ah oo aad ku cabiri kartid waxyaabo badan taas oo dad badan ku soo jiidi karta inay kula saaxiibaan oo ay ku tixgeliyaan 6 la kulan dad cusub inaad la kulanto dad cusub waxay ka caawinaysaa inay noloshaadu noqoto mid maalin walba xiiso leh oo wax cusub ay ku soo kordhaan maadaama dadka aad baranayso wataan fikiro iyo aqoon kala duwan taada oo adigana ku noqonaysa faa'iido weyn iyo inaad barato wax aanad hore u aqoonin oo cusub